Okay, asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkii saddexaad. Waxaynu kasoo dhammaanay xeebtii magaalada gudaheedii oon isla eegnay xaalado badan oo magaalada qoseeya oon isla eegnay. Halkani waxaynu hadda u jihaysanaynaa oo aynu ka wardoonaynaa waa 3 xaaladood mise 4 xaaladood baad maraysaa markaad Boosaaso soo aado. waa maraad Boosaaso xagga u sii socoto aad halkaad ka soo tagtay aad ka soo baxdo aad ku wajahan tahay Boosaaso inaad gaadho. waa maraad Boosaaso tagto magaalada xaaladeeda u kurgalayso oo eegayso oo qof magaalada ku cusub baa tahay waa inaad kala barato eegto daawato oo maarta hoteelka degto oo galabtii u yara baxdo oo intaadan badda aadin. xitaa habeenkii waxaa la aadaa waxaad tagaysaa habeen galab subax xilligaad jeceshahay weliba casarkii wixii loo gaadhay ilaa iyo 10 habeenimo aad jawi ku qaadan karto. waxaa la yiraahdaa hoteelkan magaciisa muxuu ahaa waa wala magaciisa hoteelkan la yiraahdo oo xeebta ku yaala Gacayt. dalkaas dhalinyaradii iyo cid walba halkaas habeenkii ku caweynayaan oo jawigooda iska qaadanaya xeebta xilliga xeebta meel la yiraahdaa. saasa biyuhu maartay lugaaga hoostiisa biyuhu maartay uga shanqarayaan oo codkii badda iyo maartay biyo hirarkooda saab darbiga garaacad habeenkii iska caweyn karta. inta markaad ka soo dhamaato aad maalintiina xilli hore intaad subaxdii iska kacdo aad baddaada iska soo marto waxaa kuugu xigaya meel magaalada in yar u jirta oo biyo kulul la yiraahdo biyo kulul. shidkaas waddankaas iska maraysaa halkaas ka leexanaysaa wadadu waa iska raf laakiin dhulka dabiiciga buuraleydaas quruxda indhaha maarta insha Allah laamiga waa la iska gaari doonaa. qoliyaha biyo kulul oo aan weydiiyay waxay u yiraahdeen waa lagu hawl jiraa marka inkastoo ilaa saacad 40 minutes meelaha loo soconayo ugu badnaan gaariga tartiib soconaya gaariga yar saacad buu soconaya tartiibta iska soconaya gaariga yar dheereynaya 30 daqiiqo 40 daqiiqo soconaya sababtoo waa kurwey waa dhagax iyo maartay buurooyin dalcada laga degayo buurahaas la dhex galaya daadaga hoose marka biyo kulul ku yaala. biyo kulul waa meel caafimaad ahaan iyo maartay markaad xeebtii iyo baddii maanta oo dhan milixda ku soo dabaalanaysa halkana waa tagaysaa biyaha waa steam ama qol baad isku soo xiraysaa meel foornal u eego maartay biyo kulul dhex ku jiraan oo ilaa biyahan kulul waxay ka imaanayaan buuraha aad arkaysa ka imaanayaan waa biyo dabiici ah oo maartay aan booyadna lagu soo qaadin maartay meel laga shubin on manaha dab lagu karkarin waa si dabiici ah natural ahaan bay iska kulul yihiin buurahaas ka soo baxaan. dadka rheumatism waxa la yiraahdo lafa xanuunka murqaha waxyaabahaas oo dhan kugu taagan meel dhiig xiray waxyaabahaas dhan waa ka furfurayaan. marka qof weyn iyo qof yar baa wanaagsan tahay meel shagoonida qofku maartay galayo oo kuleylka ah oo in yar ku jiray waxaa kale oo dheer meelo baraaga yar yar oo iyaguna biyo kulul lagu soo shubayo aad maartay halkaada saacad iska dhex saxanaysa oo iska jiibsanaysa mar ka doonto fadhiisa mar lagu hadla galaysa mar waad ku dabaalanaysa hadaad doonto waa lagu diyaariyay meheradii baa kugu diyaarsan iyaduna oo biyihii iyo wax walba iyo cuntooyin ka iibsanayso. waxaa kale oo kugu diyaarsan beerta dalxiiska oo ilaa khayraas iyo sida uga shaqeeyeen familiga iyo dadka halkaas kale maasha Allah dhirta lagu beeray sida loo agaasimay waa yaabaysa. marka waa goob dalxiis weeye caafimaad ahaan kaliya looma tago dalxiis ahaanna waa u tagaysaa. waxaa kale oo u tagaysaa waxaan ku yiri shower dabiici ah qaadanaysaa oo biyihii lagu kululeeyay oo aan ahayn biyo dib ku gaarsiinay kuleel xataa dib ku gaarsiinay yaama ka dhex bixin baa ku qabanaysaa. marka waxaa mucjiso oo kale dhulka aad arkaysaa hadda wax geeda kama bixin biyo kulul waa jungle waa kayn oo halka ka muuqata. markaad gudaheeda gashan waxaad oranaysaa war ma sha Allah geedaha ka baxay iyo cagaarka iyo geeduhu waxaad oranaysaa dhirtani waxay jireen wax ku dhow 100 sano
jiridu intay la egtahay jirida geedka jiridiisu intay la eg tahay dhirta quruxdooda sababta waa geedo ku fadhiya meel il biyood oo biyo kulul ka soo burqanayaan oo biyo qabow ka soo burqanayaan oo marka meeshan waa meel istiraatiiji oo la qiimeeyay weeyaan ma dadka halka maal gashaday oo maartay dhulka haysta ma sha Allah waa fikrad wanaagsan weey waliba hadii hadda laamiga asaas loo sameeyo fikrado badan baa lagu soo kordhin karaa waa magaalo dhan tuulo dhan bay noqon kartaa tuulo biyo kulul la noqonaysa mustaqbalka dhow qofkii boosaaso taga waan biyo kulul soo arag oo qof aan boosaaso tago badda tagin waa kala la mid marka waalidka hal geeyo caruurta hal geeyo naftaada adigu gee waa nabadgelyo waa safe ilaahay nabadgelyada inoo siyaadiyo maartay waa mucjisaad badan ba meesha ku duugan marka biyo kulul sii socoto buuraha iyo awoodda ilaahay dhulkaas uu maartay calaamado badan markaa ka muuqanayo oo aad ku qudra qaadan karto waxa kale ku qudra qaadashaa dhulka aad arkaysaad mooyso kuleelkii daraayo ka soo booday bal meesha kaynta hadda inaga horeysa ka hor kayntaasi waa isha ilaahay meesha ku dhex abuuray ayaa dhirtaasina waa laga faa'iiday saasa looga faa'iidaystay marka dhulkeenu wuxuu u baahan yahay kaliya haddaad doonaysa inaad beer samaysato halka calaamada kaaga muuqato waxa weeye qofkii il dabiici oo ilaahay uu siiyayna ka faa'iidaystana sida hadda biyo kulul kale looga faa'iidaystay dhirtan oo dhan ishaas looga faa'iidaystay okay isha kale oo aad ka faa'iidaysan karto waxa weeye waa riig baad ka qodaysaa meel ceel baad qodanaysaa waxa waasta baraag weyn baad u samaysanaysaa ceelkaada barkadaas biyo kugu shumayaan biyihii saayidkana beerta kugu dhacayaan geedaha dabiiciga oo dhulka kuleelaha ka soo baxaad iyagana ku beeraysaa geed yaroo maartay markuu roob la'aantu dhacdo ama biyuhu yaraadaan markiiba dhinta ma beeraysid geedaha sidaas oo kale u cagaarano xoog leh wata biyo kulul dhirta ka baxday oo kale qof walba haduu magaalada banaankeeda ku samaysto oo meel 100% isku weera ama konton muhiimadu waa inaad ceelka waa inaad biyo samaysaa first marka ugu horeysa wax ku dhaaqaysa inaad ceel qodato dhulkeenuna xilli roobaadka biyaha uu liqo dhanba meel fog ma jiraan meel dhow baa lagu gaarayaa biyaha marka geedku kuma oranayo biyahani waa kharaar biyahani waa milixda ku bad waa biyo un budoonay biyaha waxaad kale kaga faa'iideysan kartaa beertiba dhinac kaga faa'iideysanaysaa dhinac dalxiiskii baad kaga faa'iideysan minaha sanad gudihii ayaa dhirtii aad beertay ee arkaysaa 3 sano 4 sano meeshii oo kayn noqota kayn oo magaalada dhan ku timid marka maxaa kuugu xigaysa meeradii baad ka furaysaa xoolihii baad keenaysaa fardihii baad ku soo guraysaa geeli baad dhinac ka soo dejinaysaa dadkuuna waaba marka dambe meel kala fadhiista la waaya hadda boosaaso kuleelkeeda hadda biyo kulul in yar bay ka fogto wadaduna waa raf way waxaasan loogu imaaneen laakiin marba meel la istaaga la waaya hadda intaan joognay biyo kulul waxaan tagnay markaan badda ka dhamaanay baan tagnay oo adigu 12kii duhurnimo meelaha 2 saacadood nagu joogin baaba markaan ka baxaynay baankii gaariga meelan ka baxnaa way wal isku yimaad dadku qaar baa waxay ka imaanayaan Burtinle qaar baa waxay ka imaanayaan Gaalkacyo qaar baa waxay ka imaanayaan Boosaaso dhexdeedaba qaar baa waxay ka imaanayaan Laascaanood kuwa Buuhoodle waxa de sanaag meel walba sa looga soo dadagay marka biyo kulul goob caafimaad baa loo karaa goob dalxiis baa loo oran karaa waxyaabo badan ba isku biirsatay shaqaalaha iyo dadka meesha jooga si wax badan nadaafada iyo wax walba looga shaqeeyay dadka ma imaanaya meesha oo anigu aan kamid ahay oo meesha tagay kulligeena waxaan noo balana meel walba dalxiis inaan nadaafadeeda ilaashano dalkeena iska leh cid kale oo leh oo naga qaadan karta ma jirto cid kale oo inoo nadiifinaysa ma jirto shaqaalaha kaliya in lagu hadlaynin inay nagu nadiifsano iskama lihi arrinkaas caagad biyo dadka cabto meeshii lagu rideeyay koob shaah dad cabto ama tagaway ku cabo bakeeriga ku cabo waxaaga waa inay ku wada nadaamsanaadaan sidaad ku timaada kaga noqo adoo hawlahaagana dhamaystay amnigana si wada jira loo ilaaliso indhaha kala socoto caafimaadkaagana uga faa'iidaystay ma garanaysa
isku duubni dhan meel walba, ama xeebta joog ama magaalada joog ama laamiga saarnow ama biyo kulula joog ama meel kale joog, dalkoo dhan waynu wada leen dowlad shacab cid walba. marka haddii nadaafad noqoto, haddii amni ahaan noqoto, haddii horumar noqoto, dowladdu waa shacab, shacabkuna waa dowlad. marka waa dhirta ka baxday quruxda maasha Allah, meel walba la damco in la qurxiyo ama dhir lagu beero saasay qurux badnaanaysa. waa shaqo yar oo mar sanado kadib laga faa'iiday. marka geedaheenu badino, dhirtu waa hadda wadada rafkan soo marnay annagoo kulaylka oo naftuna haysa ayaanu wadada soo marnay, si walba aysiya kugu baxo dhul xeebeed oo dhan baa iska kulul. sida markaad beertan iyo geedahan u soo gasho oxygen cusub hawa cusub, waxaan ku yiri waa wax walba waa ilaawaysa. marka aad bay u mahadsan yihiin familiga dadkeena halkan diyaariyay, maalgeliyay, ku tabcay, dhireeyay, qurxiyay, waxa soo geeda ku beeray, inagana kuwii ka faa'iideysta, nadaafadeeda ilaaliya, soo booqda, invest gareeya. ma garanaysaa meesha hadda adoo biyaha kulul waxa caafimaadka ka helaysa qaal lagagama dhigan, waxa soo beeray dhir $1 bara ku soo galaysa, meesha doontaad ka galaysa $1 baan jirta barkaliya lagu kordhi. markaasna hawlaha wadooyinkii la waday waxaas maartay lacagtu waa 0.5 kaas ku tagay way $1 kaas ku tagtay laamiya dhista. marka hawlo badan oo ballaaran way ka socotaa, masaajidkii bay ku leedahay, meesha cuntadii bay ku leedahay, waa ganacsiga bilaandarka Soomaaliga anu hadda xayisiin cidna xayisiin ma dhihin, laakiin wax walba qurux badan waa la xayisiyaa, waa la sheegaa, waa la amaana, waa loo duceeyaa. marka guuleysta cid walba diyaarisa, ilaahay asxaankii wanaaga ka siiyo. waqtigan ku qaatay wax loo dhiga jirin, qof walbana waxaan jeclahay inuu sidaa waqtigiisa ka soo qaato. waalidka, hooyooyinka, cid walba imaanaysa, caruurta maasha Allah. waa baddaadii soo mar, biyo kulul iska sii mar. waxaan ku yiri waa wax kuleel iyo dhibaato dareemaysa ma jirto, bigaas ku dhamaysanaysa waqtigaaga. safarkaaguna mid xiiso badan oo xamaasad u wato oo maartay xusuuso badan kugu reebo noqonaya, sababtoo goobo badan baad ka tagtay magaalada. kalluunkaagii baad iska soo shiilanaysaa, aad dhinacaaga iska soo dhiganaysaa oo badda kala soo baxda. marka waa muuqaalkeenan saddexaadna waa kaabiyo kulule. wixii ka dambeeyay waxaan u jahaysanaynaa halkii aan ka nimid iyo caasimadii Puntland Garowe. insha Allah meel walba joogta Ilaahay nagu nabadgeliyo, annagana nabadgeliyo. guuliga goonnimo daawanayo waa dalkaagii Puntland Soomaaliya. guuliga goonnimo channelka kor ha loo qaado, ha la share gareeyo. waa share taan buu doonayaa iyo maartay iyo kor u qaadistaas danta dalka iyo dadku ka shaqeeya channelkani. sida magaciisa ka muuqata waa Puntlander, waa Soomaali weyn, waa Ilaahay buu garanaya iyo rasuulkiisa. bani jeclaa asxaabta qaaliga ah, guuleysta meel walba joogtaan. wixii fikrada iyo wixii wanaaga baan dadka la soo wadaagnaa. talooyinka waa meesheeda, talooyinka iyo horumarkii wanaag oo dhan buu soo gudbiyaa. waa biyaha kulul halka ka soo baxaya 20 qof hal mar haday gasho biyahaas dhaladaas yahay sababtoo biyahani biyo bila aadan minaha tuubooyad iyo gaari lagu soo qaaday ma waa biyo buuraha ka soo burqanaya. waa qalab lagu soo xiray tuubooyina, baraagahana la sameeyay. intayna bila aadan intan been lagu sameeyay barkadan iyo meeshana biyo ku dhacaya, inta kala biyahaas ma istaagayaan. hadda waxaan la soconaa xil roobaadka hadda uu bilaabmaya, dhowr bilood roob madin, sanado roob badan leh, haddana biyahana ma istaagaan. ومعجزات إلهي بحي كمدي مركا وانا نظيفتا وبإلوي إيشو ما وسخودو جو يجيل المو وسخو بس هدي ميل سالو حاجة سكسي بحيسا ما أنتو حلاقة بنتا سو بقولالو قفين يسو يمادان وقلا سايدك هالكاسي وبيو هالكاسي كسو قليان حاجة سكسي بحيسا حاجة سكسو مجران بيالان باجرت بيه باير هذا بيو وسخويان براكت حلا دقو وبيوهن وإلوي سعونس aan dhamaanin gurayn. marka alxamdulillah rabbil alamin wax ilaahay loogu mahadnaqo. marka guuleysta halkan waa biyo kulul ku soo dhawaada. dadkaad weydiinaysa dad magaalada ku cusub tahay, Soomaalidu waa istilmaamaysa, waa lagu tilmaamaya dadku waa dad wada maarta qalbi furan.
magaalada soo galaysaa baddaada iska dhamaysanaysaa hawleedaad magaalada markaa timaad haddaad bad u baahanta boosaaso joogto jaziira tegaysa waa meesha ugu seefsan jaziira markaad kasoo dhammaato biyo kululaad ku xijsanaysaa 40 daqiiqo hadda ugu badata saacad baa u soconaysa oo tartiib iska soconaysa waa wadada weli ma dhisna waa dhagax sababta magaalada ka yar fog tahay sidaas biyo kulul marka ka dhammaato timetable kaas samaysanaysaa qoraxda markii ka yar qowda casarkii la iska soo caraabaysaa halka ka timaaday baa nabadgelyo ku haysa marka systemku waa sida insha Allah guuliyo gobonimo oo ka biyo kulul xaaladiisana wada aragtaan meesha bilicda ay quruxda leh guuliyo gobonimo subscribe share like ta waxa geena aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga guuleysta